dalka Qatar oo ah mid baaxad ahaan aad u yar wuxuu ka mid yahay dalalka sanadihii ugu dambeeyay ku tallaabsanaya horumarka baaxadda leh muddooyinkii u dambeeyayna waxaa marba marka ka sii dambeeyay si xawli ah u soo kacaya dhaqaalihiisa taasi oo ay ka caawisay batroolka laga helo dhulkaas iyo ganacsatada dalka oo ku hawlan sidii u horumarin lahaayeen dalkooga iyagoo ku sameeya maalgashiyo kala duwan haddaba halkan waxaynu ku soo gudbin doonaa 7 shakhsi ee ugu taajirsan dalka Qatar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelka soo booqato fadlan subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale number 1 Abdullah bin Mohammed bin Saud al-Thani wasiiru dawlaha ahna gudoomiyaha gudida agaasimayaasha kooxda shirkadda Orido ee fadhigeedu yahay Doha wuxuu ka mid yahay ganacsadayaasha ugu taajirsan Qatar wuxuu ku caan baxay dadaalka ugu jira dib u habaynta iyo ballaadhinta ururkani waxa uu maanta ka mid yahay dadka aadka loo ixtiraamo ee reer Qatar uguna taajirsan number 2 Akbar al-Baykar mulkiilaha shirkadda dhanka duulimaadyada ee Qatar Airways waa 7 ilaa 8 jir wuxuu Doha ku dhashay 1962 Akbar waa mid ka mid ah shakhsiyaadka sida weyn loo aqoonsaday loona ixtiraamo Qatar laga soo bilaabo 1997 ilaa maanta wuxuu madax ka yahay Qatar Airways oo ka mid ah shirkadda dhanka duulimaadyada ee ugu caansan dunida taas oo Qatar ka dhigtay goobta ugu weyn ee dakhliga laga helo sidoo kale isagu waa xogayaha guud ee golaha dalxiiska qaranka ee Qatar number 3 Hamad bin Jaysim bin Jabar al-Thani ninka labaad ee reer Thani waa ninka saddexaad ee ugu taajirsan Qatar isagoo noqday ra'iisul wasaariye afraad ee Qatar kaasi oo xukunka hayay 2007 ilaa 2013 da'diisa ayaa ah 62 jir wuxuu ku dhashay Doha taariikhdu markii ahayd January 10 1958 dadka qaar ayaa xusa inuu nabad ka abuuray meel kala duwan oo dunida ka mid ah 20 sano ee la soo dhaafay number 4 Tamim bin Hamad al-Thani amiirka dalka Qatar ahna wiilkii afraad ee amiirkii hore ee Hamad wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu taajirsan dalka Qatar wuxuu xilka amiirka qabtay 25 June 2013 da'da Tamim ayaa ah 9 jir wuxuuna dhashay 3 June 1980 ka hor xilka uu maanta hayo wuxuu soo qabtay xilal kala duwan sidoo kalena waxa lagu xasuustaa maalgashiyo kala duwan oo uu sameeyay number 5 Wissam Saleh Al-Mana waa mid ka mid ah ganacsadayaasha ugu cadcad Qatar wuxuu cilmigiisa ku soo bartay jaamacadda George Washington iyo London School of Economic waana agaasimaha fulinta iyo lahaanshaha shirkadda Al-Mana number 6 Faisal bin Qasim al-Thani waa ganacsade reer Qatar ah oo ka qayb qaatay ganacsiga markuu ahaa 16 jir kadib wuxuu bilaabay iibinta qaybaha gawaarida Doha hadda waa gudoomiyaha mid ka mid ah golayaasha waaweyn ee Qatar ee loo yaqaan Al-Faisal Holding wuxuu aasaasay shirkadda 1964 hadda wuxuu leeyahay in ka badan 20 hotel oo ku kala yaala meelo badan oo dunida ka mid ah oo ay ku jiraan hoteelo ku yaala London iyo Washington DC number 7 Khalid bin Hamad bin Abdullah al-Thani waa shakhsiga 7aad ee ugu taajirsan dalka Qatar wuxuu ka soo jeedaa qoyska boqortooyada Khalid bin Hamad bin Abdullah al-Thani wuxuu ku dhashay magaalada Doha waxaana lagu tiriyaa maanta shakhsiyaadka ugu cadcad Qatar